ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaliim dulqaad badan. adduunkan waxa ka jiro oo maanta dhib iyo fasahaad iyo balaayo ka jiro dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dulqaadanayaa, wuu awoodaa inuu hal mar dhulka la rogo ama biyaha iyo buuraha isku soo gediyo. ilaahay wuu awoodaa, laakiin wuu dulqaadanayaa. Ramadan السلام الله عليكم أصحاب تقاليق دمانتين وإن سلامي رمضان مبارك. waxaan rajeynayaa inaad fiicantihiin. haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, like saar, asxaabtaada kalena la sii wadaag. mahadsanid. waxaan halkan ka sii baqaadaynaa casharadii noo socday bara magacyada ilaahay, asmaada ilaahay waxay noo marayeen qaybtii 30aad ay noo marayeen. haddaba halkan ka sii wadaynaa ismka maanta aan ka bilaabaynaa waxa weeye al-khabiiru. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khabiir, wax waliba og, cilmigiisa ku og wax waliba koonka ka jira. inagu waxa laga yaabaa wax yaran ognahay hebel waa khabiir ama hebel waa khabiiradan maqalnaa, laakiin waxaan ognahay wax yar oo kooban waaye. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khabiir. ismka ku xiga waa al-xaliim. ilaahay subxaanahu wa tacaala xaliim weeye, waa mid dulqaad badan. inagu dulqaadkeena aad buu u yaryahay bini'aadanku, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga dulqaad badan yahay. koonkiisa iyo waxa ku nool oo dhan waa ka dulqaad badan yahay. adduunkan waxa maanta ka jira faasiq iyo dad dhib wada, rabshado, balaayo ka shaqaynaya, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu awoodaa inuu saacado yar ku qabto dhammaantood, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dulqaadanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala al-xaliim al-cadiimu. ilaahay waa mid weyn oo koonkiisa oo dhan ka weyn, oo weynkiisu dhammaad iyo ilaa ay lahayn, dhammaad iyo bilaaw midna ma leh weynkiisu. ism kale xiga waa al-cadiimu al-qafuur. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qafuur, waa dembi dhaafe. ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keliya ayaa dembiyada dhaafa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qafuur. hadduu ku dembi dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala waad faa'iiday, waadna guulaysatay. ismka marka qafuur ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu kugu dembi dhaafo, toobadana la imaam, maalin walbana isku day inaad 100 ka akhriso, habeenkiina aad 100 ka akhriso. aad buu u fududahay. yaa qafuur yaa qafuur haddaad ku celceliso maalin walba daqiiqado yar ayaad wax ku akhrisanaysaa, adoo shaqadaada wata wax badan ku caafinaysa ku akhrinaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka inuu kugu dhaafo ayaa laga yaabaa. al-qafuur ash-shakuur. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa shukriye, midka ugu shukriga badan. inagu wax yar ayaan ku shukrin, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala shukrigiisa uu ka duwan yahay shukrigeena. inaga sa ugu shukrino ilaahay ama muqlaqad kale uu ka duwan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala shukrigiisu waa abaalmarin. haddaad amal yar samayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kugu abaalmarinayaa. al-caliyu. ilaahay waa mid sarreeya, muqlaqadkiisa oo dhan ilaahay mid ka sarreeya waa cilmi iyo qabiirnimo, dulqaad, wax walba ilaahay mid kaga sarreeya way. ilaahay subxaanahu wa tacaala al-kabiiru waa mid weyn, muqlaqaadkiisa dhan ilaahay waa ku weyn yahay, waa uu ka kabiirsan yahay. al-kabiir al-caliyu al-kabiiru al-xafiidu. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xafiid. ilaahay ayaa wax xifdiya, muqlaqaadkoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xifdiya. haddii ilaahay ku xifdiyo cid wax ku yeeli karta malaha. markii gaalada ay nebi ibraahim dabka ku tuureen ay dabka ku rideen, ilaahay subxaanahu wa tacaala dabkii waxaa lagu yiri qabow noqo oo nabadgeli. ibraahim ayaa lagu yiri dabkii. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhan haddii isu ka yimaadaan in ay ku dhibaan, hadday isku dayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku xifdiyo ma isku dayi karaan in dhib ku geystaan haba yaraatee. marka ismkaas xafiidna habeenkii markaad seexanayso 100 ka akhri, maalintii oo dhan intaad joogtana wax badan ka akhri ku wardi. ilaahay subxaanahu wa tacaala xafiid weeye. al-muqiitu. ilaahay subxaanahu wa tacaala daalacda weeye, midka daalacda adoomadiisa ficilada ay sameynayaan, qowl ku hadlayaan, ficilka ay sameynayaan, quluubtooda waxyaabaha ku jira. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa daawacda. al-xasiib. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xisaabiye. ilaahay ayaa wax xisaabiye. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa wax xisaabiye. cid kale oo
koonka joogto oo ummadda xisaabi kartaa ma jirto. Al-Jaliil ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa koonka oo dhan ka wada weyn. jaliilnimadiisa ama weynankiisuna waa mid ku dhisan cisi iyo sharaf, mid ku dhisan weyn. Al-Kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa kii deeqa ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ayuu deeqaa dhan waliba isagoo ku deeqaya, hadday ahaan lahayd awood, cilmi, dhan waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa waa ka deeqay. Isimka Kariim ayaan kusoo gabagabeynayaa. dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa inaad ka faa'iideen ismadan, wax badan inaad ka faa'iideen ayaan idin rajeynayaa. ismada ilaahay darashadooda iyo xifdintooda faa'iido badan ah ugu jirta. adigoo macnaha yaqaana lafdiga markaad xifdiso faa'iido badan ka helaysaa. waayo marka aad ku duceysanayso waxaad dareemaysaa isimka aad ku duceysanayso macnihiisa markaad taqaanid yaqiin weyn baad helaysaa. waayo waxa aad sheegay ayaa taqaanaa. dhammaantiin waa inii mahad celinayaa. mar kale waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay. dhammaantiin soo dhawaada.